Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Iyo waxaan soo soo noqonay casharradeena imtixaanaha ahaa QuickBooks 2021. Allah mahad iska leh oo na siiyay waqtiga aan ku bixinayno waana muhiim jidan taasi. Marka kan restore markaan sameynayno ma loo baahna inaan ka soo sameeyno restore-ka haddaan flash ku hayno iyo haddii kalaba oo company-ga markaan ku shubano kadib find company files aan ugu filan waana la soo helayaa location-ka laga raadinayo kaliya la iskaan gareynayaa la soo helayaa haddii web aan ku raadinayna waa gaar haddii kale oo flash iyo hard disk ka raadinayna haddii drive-ka computer-ka hard disk ka raadinayna waa kaas laga raadiyaa halka waa kala garanay online ka ka raadinayna network aan ka raadinayna scan baa laga marinayaa company walbana kaartida ayaa soo gashanaysa waa muhiim jidan taasi waa casharradeen imtixaanaha QuickBooks-ka hadda aan rabno aan ku jirno waa kii 2021 soo baxay habka loogu shubo oo cilad bixinta ahayd oo ciladii irka in laga saaro waa aragteen kana waxaad ku casharradeeni kalena waa soo aragnay oo aan soo diraarin casharka afraad marka wuxuu noqonayaa habka restore-ka u sameyn kartaan oo kaliya waxaa idinkaga filan inaad soo doorataan find company files idinkoo aan aadin halkaan restore-ka soo sameey kana kaaga filan restore-ka soo sameyso ka dooro oo bedooro next waa restore company baan sameynaya meeshaan soo mari jiray looma baahna waa fahanay waa ku dhuftay waa laysoo restore gareynaya baro casharradan iyadoo step aan uga faa'iidaysan karno waa ardayda kala duwan meel walba oo aad joogtaan steps fara badan baan u mari doonaa waana muhiim meesha aan kasoo restore gareynayo waa meesha faylasha diskaha ku jiro hard diskaha ku jiro aan kasoo helaya ama flashka ama haddii online tahay halkaasaa faylasha laga raadiyaa kaliya wuxuu ku dirayaa sida tan important waxa ah inaa update now doorato intaasuu dhameynayaa kadibna restore-kii buu ku dhex keenayaa waxaa bilaabanayaa casharradii lambar laysanskiisa xigay inaan create new company aan ka bilaabo kan laakiin waa markaan QuickBooks ku shubana sidaan restore uga soo sameyn karno company hore jiray iyadoo aan qaadan doono casharro backup iyo restore iswata ah laakiin kan waa company hore jiray ayaan soo restore gareynaynaa xogtiisii ku soo celinaynaa QuickBooks iyadoo steps fara badan aan mari doono waana muhiim jiddan casharradan oo fara badan waxaa ka helaysaan Somali Star online training iyadoo step loo qaadan doono waana muhiim jiddan intuuna haysanayo waa inta update-ka ah 2021 wuxuu qaas u yahay sida tan inuu sameeyo wuxuu ku leeyahay where you update your files company-yada aad soo wadid baan update gareynaya oo kale okay faylashiisii waanu arki doonaa waanu iska sugaynaa wax yar sug buu ku leeyahay oo yara sug waa iska yara sugaynaa waana muhiim jiddan waa Somali Star online training casharradii taxanaha ahaa oo aan ugu talagalnay ardayda horey u dhigatay kuwa ku cusubba latest version-ka ugu dambeeyay hadda waxaan ku jirnaa 2021 casharrada aan qaadanayna waa 2021 software-kii ahaa waana very important taasi waxaan soo aragnay sida error-ka looga saaro marka lagu shubayo waa number 1 casharradeenaasi iyo sidii aan casharrada steps-kooda u mari lahayn oo aan u baran lahayn iyo haddii aan horey u baranay sida aan u ogaan lahayn company-yada aan QuickBooks version-ka cusub sida uu shaqeeyo version-ka cusub qasab waxaa ah update in la helo haddii kale ma shaqeynayo Windows-ka hadduu update gareysnayn ma shaqeynayo haddii faylasha QuickBooks marka soo restore gareynaysaan waa inuu update-kaas ka mariyaa uu soo update gareeyaa kadib uu keenayaa halkan markuu soo we are updating your company file-kaaga uu soo update gareynayaa halkan uu keenayaa markuu soo buuxiyo 100% arka markaa company-ga sida loo raadiyay restore-ka halka laga keenay restore oo aan doorano file open restore ma jirto find company files baan kasoo dooranaynaa halkaasaa restore-ka keensanaynaa marka wadadii halkaan aan mari jirnay ma marin wada kale oo fudud oo halkaan ka dhow baa marnay wadooyinka kala sahlan waana muhiim jidan taasi inaan fahano marka dadka waxay ka walwalayaan QuickBooks-aan cusubay mar walba update buu ku xijeynayaa qofkii mar walba update buu dirayaa mar walba update dhan ugu dhameeyay si successful ayuu kusoo faylashii kusoo restore gareeyay oo weliba kusoo update gareeyay oo 2021 kusoo gaarsiiyey waayo faylasha hadda aan isticmaalayno oo halka 2021 lagu soo restore gareeyay hadda kadib faylkaas dib uma noqonayo
2021 wixii ka dambeeyay buu sii socon doonaa. arag halkaan wuxuu kusoo qoray marka books discussed using and analysis study continue waa leedahay. waa stepskii kala duwanaa iyo casharadii faaxa badnaa waa kaa markuu soo galayo cajaa'ib. halkaas ayaan soo galaynaa feelashii sidoodii waxba iskama bedelin, waa sidoodii, waa kaliya waa la update gareeyay oo waa cusay feelashaani. okay company-geeni markaa aan fiirino cashir hore aan usoo qaadanay iyo casharada kaleba waa isku wadnaa. casharada bilowga hadda aan kasoo bilaabayo oo aan ku sameynayo kan casriga ah. company-gan homeka markaan joogo waxaan fiirinayaa reportkiisii, meeshii ugu dambeysay report retailkiisii, company fin account payable-kii oo graphic ah iyo biiliskii oo datekaas lahaa. waxaasoo dhan baa arkeynaa. biiliskii waa ka 2019 ilashii haawe aad bay u fara badan yihiin. okay refresh baan dhahayaa. hadda ayaa la keenay company-gan uu cusub yahay. report dooro waa la saxayaa. halkan purchase-kii profit and loss-kii oo monthly loo xisaabinayo. profit and loss ka refresh dheh, datekan kasoo bilow dheh 2019. datekaa waa ina gadaal u noqotaa 2019 waa ina gaarsiisaa. haliguu company-gan ahaa 2019 marka dateka halkaas kasoo bilaabanaya, markaasuu ogolaanayaa sooma ilaa 2021. halkan on this deymaha all baa dhehaysa. markaa reportkaagii halkaasuu iska saxayaa. halkan shaqo fiican lama qaban oo profit and loss-ka waa iska saas. okay waxaan soo bilaabayaa cashiradii ahaa inaan company cusub sameyno, lacagii aan dhigno, lacagahana loo dhiibta aan dhigno. halkaas ayuu cashiradeenna kasii bilaabay. laysankaan ku jirno waa laysan 4. waxaan aragnay sidaan restore soo sameyno oo annagoo marnay dariiqii ahaa find company. halka aan soo maray haddaan idinkugu soo celiyo waa file close company. company-gii baan iska xirayaa. waa steps company-ga find file company baan dooranayaa. waa kan dhiskaha laga raadiyay. haddii aad flash ku haysan halkaana laga raadinaya USB. halka kuma jira, loguma jira USB. halka haddii network ay tahay internetka online ay tahayna kana laga raadinaya. waa fahnay intaas. marka company kale ayaan soo restore gareynayaa. ila soco soo restore. awal waxaan doortay kan iyo kan iyo kan aan dooranayaa. marka kaasaan dooranayaa ama kanaan dooranayaa. open baan soo dhahayaa. waa restore-kii uu geynayaa toos. halka kama dooranayo restore ee halkaasaan kasoo dooranayaa next. saan usoo celiya arag. halkaan 21 ka ah waxaan ka dhigayaa 5 waayo kii hore aan ka dhigay 21 oo fail kuguma save gareyn doono. waa la soo celinaya. company-gaygu wuu isxiray oo soo celintii uu bilaabay inuu daatadii soo celiyo. wuuna soo celinayaa, update buu ismarinayaa, wuu keenayaa. intaas cashirkeena maanta waa find company-yada saan soo helno. waa kaasa saas ayuu noqonayaa. updatekaas waa qasab in amaad aragtaan. updateka markaa aragtaan uu mariyo kadibna waa uu keenayaa company-gii. restore-kii saas ayuu kusoo saxayaa. cashiradeenna waa stepskii ugu dambeeyey. waana muhiim jiddan inaad la socotaan. cashiradan oo fara badan ayaad faa'iidaysan doontaan. waana very important iyadoo cashiro fara badanna aan ka faa'iidaysan doono step ah. hadba tilaabaan sii qaadi doonaa. waana muhiim jiddan taasi. waa cashiradii taxanaha Somali Star Online Training. waana engineer maxamed axmed bare. casharadiisii taxanaha ahaa oo aan ka wada faa'iidaysan jirnay. hadba tilaabaa horey loo sii qaadaya iyadoo step looga faa'iidaysan doono cashiradani. updatekaas tuu dhamaynaya suga. waa cashirkii afraad. cashirkii shanaad waxaan tusin doonaa company-yada. wuxuu kasoo bilaabanayaa sida akoon u samayn lahayn, company cusub soo bilaabi lahayn, xisaabtiisii u dhigi lahayn, milkiilayaalna u abuuri lahayn, kadibna aan lacagahana loo dhiibto qasnad u samayn lahayn, qasnado kala duwan aan samayn lahayn, kadibna aan halkaas ka qaadi lahayn, ka socon lahayn.
versionkaan isticmaalina waa 2021 waa latest. marka muxuu ku weydiinayaa intaa waa qasab inuu ku mariyo, waa fudayd bay ahayd awal, si fudud buu ku mariyay. halkan waa culays, laakiin fail walba wuxuu rabaa 2021 inuu soo gaarsiiyo. failashan backupka waxay ahaayeen 2018 quickbookii ahaa, marka 2021 buu kasoo dhigayaa. failasha hadday kasii horeeyeenna saasoo sida mida updateka ayuu marinayaa, waana updateka qaabkaas uu mariyaa quickbookis. la soco marka aan 2021 aan saan failasha isaga update garayn kambaniga ma soo fariisinayo, waana very important taas. kuwii hore saas way fudeyd bay u boobsiin jireen, kan xoogaa culays baa ku jira. cashiradan oo fara badan waxaa kala socon kartaan Somalistar online training, iyadoo steps fara badan aan kasoo faa'iidaysanay cashirada latestiga quickbookis amaba akoontiyada softwarada akoontiga ah. halkana ka heli kartaa, waana muhiim jiddan. haddii cilad farsamo ay ku haysatana waa nagala soo xiriiri kartaa somalistarabadiyo.com, ama waxaa kaloo nagala soo xiriiri kartaa nambarada ku qoran shaashada, iyadoo steps halkan kaga faa'iidaysan doontaan. waxay macluumaad oo dheeri kusoo diri kartaan Facebook pagekeena Somalistar online. Facebook pagekooda waa fariin, waa nagu reebi kartaa qoraal, waana very important taasi. iyadoo steps fara badan iyo cashiro fara badan hore aan usoo faa'iidaysanay, maanta waxaan qaadanay casharadii ugu dambeeyay 2021 aan ku qaadano. saasuu ku dhameeyaa sidii kii hadaayo kala way. successful update your company file-ka waa update garaysay quickbooks 2000 desktop 2021 asigoo online baa jiro. quickbook desktop marka lagu yiraahdo waa kan caadiga ku shubatid, asigoo online ah ku isticmaalaysid internetka ayaa jira. waa very important taasina la wada socotaan, waana muhiim jiddan taasi. defaultgiisiisu ku imaanaya ila soco, adiga badbedelan kara, hadhowna saxsaxan kara reportkaaga iyo waxaaga. feelashani reportka haddaa fiirisaan waa ku noqonaysaan report, waxaa iska saxiisaan reportkii meeshuu ahaa summarygii kulli vendorskii detailskii. reportkani marka wuxuu marayaa, reportkani wuxuu joogaa dateka yeerka, marka physical miyaa maya. marka all baa halkan kala doortaa, all dooro. all markaad doorato refresh dooro, kan furo. oo haddii reportkan ay hore wax ugu jireen asaa keeni doonay. halkan iska sax reportka waxaa gaarsiisaa 2021 meesha 19 ka dhig. marka intaa ka dhigto kaas, kan intaa ka dhigto maya. reportkan from wuxuu ka imaanayaa bishii koowaad 2019. halkaana waxay noqonaysaa maanta bisha intay tahay, taasay noqonaysaa. marka reportka markay saa tiraahdo halkaan dooro, all baa dooranaysa. sida kaliya aad ku ogaan karto xisaab hore hadday ku jirto, haddaysa ku jirin, haddii companigaas ka dhisnaa bilaa xisaab ahaan oo arki kartaa listis item list, hadday item yaaleen iyo haddii kaleba item way yaaleen. itemskii wuu soo baxay. reportkiina waa sidaas lamid ah. report company sales and graphic report dooro. haka asoo graphiga refresh dheh. haka saasaan ku ogaan karnaa reportyada itemka customerka any report waan printer garayn karnaa. details haddaa rabtidna asa details all year baakan geynaysaa kaliya sidaan idin tusay. all baan geynaynaa. halkan from waa 2019 baan gaarsiinaynaa, halkana 2021 baan gaarsi. halkan 19 baan tegayaa, ila soco. agosto may april 18 baan u gudbay, ma rabo 19. marka intaa iraado okay baan leeyahay 2019. marka halkaa kan waxaan geynayaa 21. markaas waxaan leeyahay okay, isbedel baa ku dhacaya. marka refresh taan iraado xisaabtoo dhan baa la tusaya. asa graphical waaye, iyadoo as caadiyana waa arki karnaa oo caadi ah. marka xisaabaha iyo nidaamyada kala duwan saana loo isticmaalaa, waana very important taas. marka reports walba halkaana ka isticmaalaysaa. report walba isticmaalaysid halkaana ka isticmaalaysaa. reportkii inventory hadduu yahay iyo hadduu inventory ahaynba. marka cashiro fara badan baan soo qaadanay step anagoo uga faa'iidaysan karna. kan daaqadan waa iska xiri kartaa haddaa rabtid, oo icons ku saaran daaqadan home waa ka baxaysaa, oo adiga waxaa samaysanaysaa daaqad ku cusub. kan haddaa rabtid waa iska xiraysaa, waa iska xiraysaa, waa iska xiraysaa. itemyadii waa iska xiraysaa,
waa iska xiraysaa kan no waa dhehaysaa memorize garay kan markaa baarkan kugu furan adiga ayaa maamuli kara waa iska xiraysaa isaga naftigiisii minute baa isaga xiraysa haddana waa soo furatay haddana haddaad danto gelis buu iska leedahay iyadoo steps fara badan aan soo qaadanay waa Somali Star Online Training casharadayna halkaas ayay sii marayaan sida darteed fi amaanallah